السلام عليكم داوديال كسو دوادا برنامجكني عزي دكتورس maanta waxaa miiska inoo saaran daryeelka kilkilaha maqaarka kilkilaha waa mid ka duwan kuwa jirka kale waa maqaar aad khafiif ah sidoo kalena aad u jilicsan kilkiluhu waxa ay leeyihiin qanjiro dhidid iyo weliba timo kilkilaha waxaa asiiba cillado kala duwan kuwaas oo ay sababaan xaalado aad u fara badan waxaa ka mid ah waxyaabaha kilkilaha ku dhaca xasaasiyadda kilkilaha madmadowga kilkilaha urta ama shiirka kilkilaha iyo caabuqyada kilkilaha ku dhaca aan ku bilaabo tan koowaad xasaasiyadda kilkilaha inta badan xasaasiyadda kilkilaha waxaa sababa deodorantiska waxyaabaha lagu carfiyo kilkilaha iyo antiperspirantiska waxyaabaha yareeya dhididka kuwaasi oo looga hortago in kilkishu ay shiirto qodobka labaad wuxuu yahay urta jirka ama urta kilkilaha waxaa inta badan sababa bakteeriyada ku nool maqaarka ama kilkilaha taas oo falgal la samaysa dhididka saliidda iyo unugyada jirka sidoo kale urta jirka waxaa sababa cunooyinka diiqada ama xanaaqa faraha badan iyo weliba cudurrada qaar xaaladda saddexaad waxay tahay madmadowga kilkilaha madmadowga kilkilaha waxaa ka mid ah nooc loo yaqaano acanthosis nigricans madmadowga kilkilaha waxaa inta badan sababa dhaxaltooyada qofka hadduu familigiisa hore u lahaan jiray wuu yeelan karaa sidoo kale dadka cayiran oo lalaab kale sidoo kale madmadowga kilkiluhu wuxuu ku badan yahay dad kale birobiyoodka minka iyo weliba dadka qaba cudurka sokorowga ama sokorta kan afraadna waxay tahay caabuqyada ku dhaca kilkilaha waxaa inta badan sababa bacteria ama fungal ka fogow waxyaabaha xasaasiyadda kugu keeni kara xiro dhar aan kugu dheganayn si uu jirkaagu uga neefsado ha ku xiirin kilkilaha waxyaabaha xasaasiyadda laga qaado ee kiimikada ah u daryeel kilkilahaaga sida aad u daryeesho jirkaaga kale haddii aad dhidid badan tahay isticmaal daawooyinka dhididka yareeya waad ku mahadsan tahay la socoshada barnaamijkeena fadlan like-ta sheerta lofta subscribe-ka ha inaga hilmaamin waxa inoo ballan ah bisha barakaysan ee ramadaan